oo intii nabiga saxaabada ku gaabsada ma dhici karta in la yiraahdo wariya maxaad ugu soo dari weyday diinta oo intii nabiga ugu gaabsada su'aashaas ma ku iman kartaa ya wariya diinkii nabiga iyo saxaabadu ku sugnaayeen maxaad wax ugu soo dartay ma ku iman kartaa su'aashaas ma dhici karto laakiin qofka wax ku soo daray ma wuusan ka baqayn ilaahay hortiisa in la yiraahdo maxaad ugu soo dartay diinta shaygan يا ولد سؤاشاس إنه وحكا أديارسدو سو ماهن إلا ضدك مؤمنين تا ضد اسكسعودا ماهن إلا وحو كنت المعنى وضد عبس كنول والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم موجلة أنهم إلى ربهم راجعون وضد داعاتك ما كي سمينا عبس كنول وكول وليا إلهي ذا اللي وحرنا يا محاطه الضمطان وانا ضدها فتك الدبادة واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين ضدك إلهي أرتيس وكبت بادية وضدك أدونك عبس الجري marka qof walba waa inuu ka jawaabo su'aashaas naftiisa uu gaar u weydiiyo arinta shanaad waxaan rabnaa wax inaan isweydiidano Abu Bakar ma ihtifaalin mawlid ma dhigo wala isla godo qolada dhigay qolada kale Umar ma samayn Uthman ma samayn Ali ma samayn dhammaan saxaabadu ma samayn tabi'iyalkuna ma samayn dadna gadaal waa kuwa ka sameeyay Abu Bakar iyo Umar iyo saxaabadii kale nabiga ma jeclayn mise ma jeclayn waxaan leenahay marka Abu Bakar wad ogtiin waxa ku soo arooray oo fadaa'ilah iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo qayrkooda saxaabada jacaylka ay nabiga jeclaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam sida muslim iyo qayrkiis ku sugan Umar ibn Khattab wuxuu ku yiri qofka ilaa naftiisa uu iga jeclaado wali iimaan laga helin kaamil u fiirso nafteeda waa ka jecelahay nabiga Abu Bakar Umar saasuu nafta aniga igu jirta markaas uu hadda laga helay iimaankii kaamilka ah u fiirsada qof kasta oo aan nabiga naftiisa ka jeclayn iimaankii waajibka oo looga baahnaa laga helin qofku waa inuu naftiisa ka jeclaado nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabiga iyo naftiisa waa inuu nabiga jeceliyo sallallahu alayhi wasallam caruurtu dhalay nabiga waa inuu nabiga jeceliyo waalidkiis iyo nabigana waa inuu nabiga jeceliyo saxaabadana sidaas ku sugnaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam ansaarta dagaalkii Uhud يا جنة وبلغاله oo naga difaaca gaalada markaas aan isku aadeysa nabiga sallallahu alayhi wasallam fallaarta nabiga lagu soo ridayo xarakkiisa u dhigay waa la dil mid kale soo istaagay waa la dil toddoba saas la isku saaray ma jeclaayeen kuwaas nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwaas ma dhigin xaflad mawlid ya kuwaanuna waa dhigeen labadaba qolaan nabiga jacayl badan yaa nabiga jacayl badan marka qoladii dhigeen iyo qoladan aan dhigin soo marka been cad maahan alla looga biqin in la yiraahdo qofka aan mawlid dhigin nabiga ma jecla soo been cad maahan ya qofka nabiga aan mawlid u dhigin nabiga ma jecla soo been cad maahan nabiga dadka mawlidka u dhigin ma jecla macnaheedu maxaa ka dhalana Abu Bakar ma jecla ka iimaanay Umar ma jecla Ansaar iyo Muhaajir ma jecla ka iimaanay soo ma jeedin soo been cad maahan subhanallah soo ilaahi looga